waa tixanaha sagaalaad maanta halkan ayuu inooga bilaaban doonaa. waxaan ahay Cabduqaadir Maxamed, soo saaraha iyo tarjumaaga tixanayaashani ka warramaya taariikhda boqortooyadihii dunida soo maray. waa markii ugu horeysay waa ciidamada militariga ee Roma. waa ciidamo loogu carbiyay dagaal. ciidamadii boqortooyadihii Gariiga ayaa waxa ay ku dagaalameen Phalanx Hoblet. Phalanx Hoblet waa nooc ka mid ah tactikada dagaal ee ugu caansan dunida. tactikadani dagaal waxa ay guul weyn u ahayd Alexandria. laakiin waxa ay ciidamada reer Alexandria ay si tartiib ah daafaca u galeen iyaga oo is aruursanaya. Romaanka ayaa u dagaalamay qaab dhismeed cusub. saddex saf ayaa lagu abaabulay ciidamada infantry-ga ama lugta ee boqortooyada Romaanka. jiida hore ee dagaalka ayaa la dhigay dhalinta Hestate. waa ciidamada da'da yar ee Romaanka kuwaas oo u dagaalama si cajiib ah. guutooyinka ayaa bilaabay is aruursi iyo daafac xooggan. waxa ay ku bilaabeen dagaalka tuuridda warramo ee ku wajahan askarta boqortooyadihii Gariiga. kadib waxaa la isdhaafsaday seefaha oo galalkoodii baa laga saaray. tactikadii adkayd ee askarta Alexandria ayaa la jebiyay. laakiin Romaanku kaliya ma aysan haysanin askar aad u tiro badan ee dhammaan shucuubta Roma ayaa dagaal jihadiisa raacay. laga soo bilaabo da'yarta waxaa loo tababaray difaaca Roma. Romaanka ayaa ku adkaystay inaanay gorgortan ka galin difaaca boqortooyadooda. dhammaan Romaanka waxa ay go'aansadeen in ay helaan hoggaan qura ee ciidanka. waxaana loogu magac daray awoodii boqortooyada. marka loo eego militariga sharaftiisa, bulshooyinka Roma ma ay jirin mid uga sharaf badan.
kadib markii ay gacanta ku wada dhigeen Talyaaniga. Roma waxa ay heshay ciidamo awood, saanad iyo cuduudba tiro badan. Jamhuuriyaddii Roma ayaa noqotay mashiinkii dagaalka. waxaa jiray wax ka badan awoodda Jamhuuriyadda Roomaanka oo aanay ahayn kaliya awoodda ciidanka. sida uu sheegayo taariikhyahankii reer Gariig ee Polybius, sirta guusha ee Roma ayaa sidoo kale laga heli karaa nidaamkooda dowladnimo. waa nidaam gaar ka ahaa dunidii hore. sida uu tibaaxayo faylasuufkii reer Gariig Aristotle ahaana aabihii juqraafiga, waxa uu sheegay inay jireen 3 nooc ee dowladeed dunidii hore. midda ugu horreysa waa monarchy, waa nooca dowladeed ee u dhisan sida boqortooyo. sida laga dheehan karayo xukuumadihii bariga dhow. noocani monarchy-ga ayaa looga aarimin jiray Masar, Assyria iyo Baabil, iyo waliba boqortooyadii Farisiyiinta. wadamadan ayaa hogaankooda u xukumi jiray sida boqortooyo iyo kala qaybinta awoodaha ee waaxyada boqortooyada. kadib markii uu Alexander uu la wareegay boqortooyadii Faris, waxa uu la qabsaday hoggaan dhaqameedkii bariga ee dowlad u arrimisa sida boqortooyo. hanaankan ayaa waxa ay guul u soo hooyisay Alexander. waa hogaamiyayaashii boqortooyadihii Hellenistic. kadib nooca kale ee dowladeed waxa uu ahaa aristocracy. waxay tahay aristocracy? waa qaab dowladeed ee ay isticmaalaan dowlado dhowr ah sida tan Sparta iyo tii reer Carthage. dowladahani ayaa loo maamuli jiray habraaca qaninimada ama dhaqaalaha iyo awoodda qabiilada. kadib hanaanka saddexaad ee dowladnimada dunidii hore iyo tan maanta ayaa ah dimuqraadiyadda ama democracy, taas oo aynu wada garanayno. sida Athens-ka waxay ahayd xukuumadda ugu weyn Gariiga, waana kuwa soo saaray nooca xukun ee dimuqraadiyadeed. halkan awooddu waxa ay ku dhex nooshahay dadka. waa hanaanka xukun ee dimuqraadiyadeed, taas oo muujinaysa inay tahay awoodda shacbiyadeed. laakiin dhammaantoodba waxa ay lahaayeen ku-xigeenno.
dhammaantoodna waa lama huraan in la musuqmaasuqo. nooca aristocracy-ga ee dowladeed ayaa ah oligarchy. Oligarchy waa kooxo yar ee haysta maamulka waddan ama hay'ad ama waax xukuumadeed. dimuqraadiyaddana waxa ay ku dhammaataa anarchy. Anarchy waa hanaanka siyaasadeed ee aan sharciga dhowrayn ee mar walibaba kicitanka u ah fawdada iyo jabinta awaamiirta dawliga. hanaankani siyaasadeed waa mid Soomaaliya ka jiro. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada aan weli helin jiho sax ah ee siyaasadeed, taas oo ay ku arrimiyaan dawlad ama xukuumad. maadaama dunida oo dhanba ay haysato 3 nooc ee dawladeed, balse Soomaaliya midee ayaad adiga ku sifeen lahayd? aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee faalada haddii aad fahamtay noocyada xukuumadeed ee dunida hore iyo tan maanta ay isticmaalayaan. kuna cabir hanaanka siyaasadeed ama xukuumadeed ee Soomaaliya tan ay tahay. waxaan ahay Cabduqaadir Maxamed, turjumaaga iyo soo saaraha tixanayaashan ka warramaya taariikhda boqortooyadihii dunida. qaybta 9aad ee tixanahanaga maanta halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. inta qaybta xigta ee tixanaha aynu kaga kulmi doonno iyo maalinta xigta ta ka horeysa nabadgelyo. rukumo channelkanaga si aad uga mid noqoto saaxiibadeena. mahadsanid.